السلام عليكم ardayda kusoo dhawaada qaybtii labaad ee tenseska casharkaana waxaan ku bixinaynaa ama aan ku baranaynaa past tense haddaba maxay tahay waa waqti lasoo dhaafay casharkan kii ka horreey waxaan sharxay tenses waxaan ku micneeyey af soomaali ahaan waa waqtiyada ay ficilka dhacayaan wuxuu noqon karaa waqtiga hadda waqti lasoo dhaafay waqti hadda kadib imaanayo waqti oo ficilka uu socdo weli dhammaanin intaas waxaa la yiraahdaa waqtiyada kala duwan waa tenska waqtiyada kala duwan oo ficilka qabsoomayo ama la sameynayo ayaa la dhahaa tense haddaba waxaan soo barnay casharkii kan ka horreeyay present tense oo afar qaybood aan ka dhignay afartaas qaybood haddaa ila fahamtay oo waxda su-aalaada qabin oo ii sheeg si fiican u fahamtay haddaba qaybta labaad oo past tense ayaa baranaynaa casharkan sidoo kale past tense wuxuu u qaybsamaa afartan halkan ku aragtid waa simple past tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense afartaas u qaybsamaa haddaba si kooban iyo si guud ah u sharaxo waxyaabaha ay kala yihiin simple past maxaa weeye ficilkana siduu yahay haddaba waqtigan simple past tense haddaa maqashid waxaa waaye the action completed or finished ficilka wuu dhacay wuu qabsoomay wuu dhammaystirmay waa laga soo gudbay waa laga soo farxashay waa laga soo tegay wax saameyna waqtiga hadda kuma lahan ficilkaas noocu doono ha ahaado waa ficil dhacay waqti hore dhacay dhammaaday laga soo gudbay weeyaan waa simple past haddaa maqashid waa iska simple ficilkii wuu qabsoomay wuu dhacay wax saameyn oo haba yaraatee kuma lahan waqtiga hadda la joogo present timeka ah waa dhammaaday waa lagu kala baxay alright number 2 past continuous tense haddaa maqashid halkan the action in progress halkan micnaheedu waxay tahay ficilka ma dhammaystirmin ficilkii waa qabyo ficilkii asagoo socday baa waxaa la dhahaa waxaa laga soo galay interruption wax la yiraahdo waa laga soo dhexgalay ficil hadda anoo hadlayo baa liga soo dhexgalay that means waa ficilkii hadalka ma dhammeynin hadalkaygii inta ugu talagalay ma hadlin sharaxaadii cashirkii waxaan bixinaya ma dhammeynin ficilkii hadalka ahaa uu qabyu noqday ma dhammaystirmin sidoo kale ficilkan past continuous wuxuu noqdaa tusaale ahaan oo kale waxaa loo isticmaali karaa markii ficil socday waqti cayiman oo khaas ah oo adiga aad garanaysid specific time ficil dhacay markaa rabto inaad ka hadashid ama ii sheegtid tusaale ahaan oo kale waxaa leedahay at 7 p.m. she was reading at 7 p.m. she was reading aad leedahay daad micneheedu yahay toddobada habeennimo way akhrinaysay haddaba akhriskii may dhammaystirtay ma garanayno adigana imaada sheega ana ma garan karo ma naqaano ficilkii waa socdaa inuu dhammaystirmay inuusan dhammaystirmin ma kala garanayno because noloma sheegin saameyn ma ku leeyahay waqtiga hadda ah waa maya wax saameyna kuma lahan keliya waxaan ka hadlaynaa ficil waqti lasoo dhaafay socday dhammaystirkiisa iyo qabyadiisii keliya aan ogaanayno aanan shaqo kale ku lahayn waqtiga hadda joogno sidoo kale waqtigan past continuous markii laga hadlayo waxaa laga hadlaa unknown completion wax la yiraahdo tusaale ahaan oo kale ficilkii wixii hadda aan sheegay oo kale wuu dhacay wuu qabsoomay goortuu qabsoomay ma naqaano waxaan ogaa un ayadoo hadlayso she was speaking hadalkii goormuu dhacaayay ma naqaano inay hadlayso bas leel sheegay hadalkii miyaa dhammaystay ma naqaano yeela hadlaysay ma naqaano just ficil qabyo unbaa halkaas lagu sheegay waana past continuous waay past continuous waxaan ka sheegnay saddex arrimood arrinta koowaad waxaan niri ficilkii socday waqti lasoo dhaafay baa ficil kale kasoo dhexgalay sida aniga hadda anoo hadlao kale oo waqtiga lasoo dhaafay jooga baa hadalkii laga soo dhexgalay waa interruption waa la interrupt gareey ficilkii sidoo kale ficil waxaan kaga hadlaynaa oo waqti la yaqaano cayiman oo dhacayay laakiin dhammaystirkiisa aanan garanaynin sidoo kale halkan waxaa ku sheegnaa unknown completion oo ah in ficilkii uu socday goortuu socday ma naqaano yuu saameynaya ma naqaano keliya waxaa ognahay ficilkii inuu dhacayay intaas wax dhaafsiisa ma naqaano haddaba kaas haddaa ila fahamtay past perfect waxaa weeye action before another past action waxaa weeye halkan waxaa lagu sheegayaa laba ficil oo waqti lasoo dhaafay dhacayaan oo laga soo warinayo way kala horeeyaan midba midka kale ayuu ka horreeyey wayna saameynayaan waxaa laga hadlaa laba ficil oo labadoodaba two actions that both happen in the past
but one action happened before the other laba ficilo waqti lasoo dhaafay dhacay laakiin mid ayaa midka kale ka hor dhacay oo ka horeeyay sidoo kale waxaa loo isticmaalaa waqtigan markii la warinayo sheeko ama narration la sameynayo ayaa la isticmaalaa sidoo kale waxaa la isticmaalaa waqtigan markii oo to show cause ama effect of an action tusaalahaan kale when I arrived at school the teacher had already started the lesson waqtigan weye iskuulka markaa imaaday macalinka cashirkii wuu bilaabay oo ficilkii cashirkii lagu sharaxay wuu bidhacay haddaa intaas taasna ila fahamtay number 4 past perfect continuous tense waxaa weeye long action before another past action halkan ficil oo soo socday waqti lasoo dhaafay oo ficil kale kasoo galay mana dhamaystirmin ama wuxuu saameynayaa waqtiga hadda la joogo ama muddo cayiman ayuu ku dhamaystirmay labadii ficilba so haddaba markaa haddaa intaas ila fahamtay waxaa rabaa jumladaha aan fiirino siday u dhacayaan in examples in sentence I cooked rice yesterday tan waa simple present waaye waxaan kariyey bariis shalay they played football waxay ciyaareen kubadda cagta simple present past tense waaye she went to school simple past tense waaye waxay aaday school. Alright, I was reading a book at 8 a.m. This is past continuous tense waaye waxaan akhrinayay book 2 saac habeenimo wixii dhacay kadib ma naqaano. The children were running in the field. Caruurtu waxay ku ordayeen fielka garoonka kadib maxay sameeyeen ma naqaano. Waa past continuous tense. She was cleaning waxay sameynaysay nadaafad when I arrived home markaan imid guriga. Halkan ficil baa socday oo ah nadaafadii markii aniga aan imid xaafadda imaanshayga kasoo dhexgalay. Alright, ama waa sheegayaa in laba action oo mid kale hore dhacay. Okay, number 3 waxaa weeye he had left before I came. This is perfect past perfect waaye he had left wuu baxay before I came ka hor inta aniga aanan iman ayuu baxay waad ka sheekeynaysaa waa past perfect waaye I had finished waan dhameeyey the work shaqada before the sunset qoraxda intaysan dhicin kahor ayaa shaqada dhameeyey ficilkan oo ii sheeg waa shaqadii hawsha ku qabanaysay iyo ficilka qoraxda dhacay labadiiba kulmay laakiin waa kala horeeyaan waa labadaba waxay dhaceen waqti la soo dhaafay laakiin way kala horeeyaan halkaas sidoo kale she had cleaned the room before the visitors came she had cleaned way nadiifisay the room qolka before the visitors came ka hor intaynan imaanin dadka martida ah ama dadkana soo booqanayay ayay wax walba nadiifisay weye okay sidoo kale I had forgotten the keys before I locked the door waxaan hilmaamay I had forgotten waan hilmaamay the keys furayaasha before I locked the door ka hor intaan albaabka xirin baama soo iloobay furayaashii maba xasuusaninbo dan albaabkii waa xiray waa laba ficil oo kala hore she had prepared lunch before the children came home waxay diyaarisay cunto